ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala markii uu noogaga soo warramay mu'miniintii oo waxa weeye daahir iyo baatinba iimaanka iska lahay kufaarti waxa weeye kufrigoodu daahir iyo baatin waay markuu nooga soo warramay qaybtan saddexaad ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaar oo waxa weeye daahirka waxa weeye mu'miniinka ah baatinkana kufaarka ah kufaar oo baatinka kufaarka ah daahirkana iimaan ka sheeganaya oo munaafiqiin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya axwaashooda ayaa ilaahay nooga warramaya iyo markaasi dulliga ku dhacaaya iyo ilaahay subxaanahu watacaala sida u jaasinaayo miisaalka la yeelaayo amarkooda ciibtiisu si ay noqonayso waxaana loogaga warramayaa 13 aayadood oo aayad ugu dambaysta ilaahay uu dhihi doono ina allaha calaa kulli shayin qadiiray ku dhamaataa ilaahay waxau ka akhiray mu'miniinta iyo kufaarta daahir iyo baatin ba ah oo mu'miniinta daahir iyo baatin ilaahay rumeeyey iyo kufaarta daahir iyo baatin ilaahay ku kufriyey ayaa dib looga dhigay waxaa la ishaarahaa la yidhi ayaga ayaa ka xaalad xumaa la yidhi kufaarta caadiga ah maxaa yeelay sida hadda idnaabka loogu samaynayo ayaad garanaysaa oo markaasi loo badinaayo sifaadkooda cadaabkoodana ilaahay ugaga warrami doono sifaadkooda xuno loo sheegaayo ilahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa kamid ah man duul yaquulu ku qawlaaya aamanaa billaahi ilaahay ayaanu rumaynay wa bilyawmi yoomkina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal maahum aysan ahayn ow dha ilaahay bimumina kuwa rumeeyey aysan ahayn marka hadda iimaan layska sheegto ilaahay agtiisana aan saxiix ka ahayn waxba tari maayo yuqaadicuuna allaha alla ayay khadeecaayaan ilaahayay dhagraayaan ow dhah ilaahay sida markaasi ayaga ay la tahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay khadeecaayaan ow dha ilaahay maxaa yeele waxay daahirsanayaan biidhaari khilaaf maa abdanuuhu weeye min alkufri weeye waxay daahirsanayaan waxyaabaha ay qarinayaan wax markaasi waxa weeye khilaafsan oo kufriga si waxa weeye axkaamta oo dunyawiyada ay isagaga daafacaan wamaa yukhaadicuuna ma dhagraayaan ow dha ilaahay oo ma khadeecaayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo khadaacadaasu naftooday ku dhacaysaa khadaacadaas lianna wabaala khadaacihim raajicun ilayhim waxa weeye dhagartoodaas baaska ka yimaada ayaga ayuu kusoo noqonayaa adduunyada ayay ku falleexoobayaan oo ilaahay rasuulkiisa ayuu daalacsiinayaa waxa ay qarinayaan markaasaa adduunyada lagu falleexaynaya sida dhacday aakhirana waa lagu ciqaabaya wamaa yashcuruuna masa garanaayaan ow dha ilaahay oo ma ogsoona khadaacaas ay samaynaayaan inuu naftooda ku dhacaayo ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii quluubihim ow dha ilaahay kuwaas laabtooda waxaa ahaadow dha ilaahay maradu bushi ayaa ahaaday fii quluubihim laabtooda ow dha ilaahay subxaanahu watacaala maradu bushi ayaa ahaaday shaki iyo munaafiqnimo ayaa qalbiga uga jira weeye markaasuu wuxuu jiriyey quluubtooda ayuu jiriyey oo uu laciifiyey fazaadahum ullahu dabeedna alla wuxuu u ziyaadiyey ow dha ilaahay maradan maral ayuu ilaahay u ziyaadiyey walow maxaana u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yadibuuna kuwa been sheego qowlkooda ku been sheegay ahaadeen hadda maralkan waxaa la yidhi waxaa lagu idlaaqaa midka xisiga xisiga marka lagu idlaaqo waxa weeye waa markaasi midka la yaqaano cudur loo jeeda ah weeye midka macnawigana waa lagu idlaaqa oo shakiga iyo munaafiqnimada ah weeye waxaan shaki lahayn ba la yidhi nimanka munaafiqiinta qulubtooda labadaas maralba waa ku jira midka xisiga iyo midka macnawiga la yidhi maxaa yeele midka macnawiga ayaa hadda ku jira laakiin sabab wuxuu u noqonayaa mid xisiya ayuu macno u noqonaya oo sabab u noqonaya maxaa yeele arrintaas munaafiqnimadaahu maral oo xisiyay gaarsiinaysaa adduunyadana waa lagu falleexaynaya aakhirna waa lagu cadaabaya marka ilaahay waxau dhahay alla maral ayuu u ziyaadiyey maralku wuxuu ugu ziyaadayaa qur'aanka markaasi soo degaaya oo kufrigooda ka warramaaya cadaab aliimana aakhire iska leeyihin ow dha ilaahay sababtuna waxaa weeye inay ku been sheegeen hadalkooda ay dhahayeen aamanaa waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil arli akhladaha fasahaadina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeto mayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinaayana arladan fasahaadka ka daaya markii la yidhaahdo waxay leeyihin annagu muslixiinaanah waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil arli dhulka dhexdiisa oo kufriga ka daaya iyo dadka iimaanka aad ka sarfinaysiin qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeto mayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinaayana walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin waxaan ku sugannaha fasahaad maahan ilahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay alaalway tambiih weeye baraarugay ayuu dha ilaahay inahum ayagu humulmufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya way fasahaadinayaan arladow dha ilaahay walaakin kalkeeda laa yashcuruuna ma garanayaan fasahaad inay wadaan maxaa yeele dadka mufsidiintaahu waxa ay wadaanba ma fahmaayaan waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay aaminuu rumeeya kama aamana naasu dadku siday u rumaynayaan oo asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam siday u rumaynaan kale u rumeeya markii la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana sufahaau kuwa juhaaladaah ay u rumaynayaan
أصحابته أي كودان عليه رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابتي كودان قالوا وحي ليهن أيوة إنكر يورك ليري أنه منهم يانو همينينا كما آمن السفهاء كوى جهالة وسيء همينيا ما فلينا فعل قضوك إليه إلهي سوى كردنا وحوضها ألا هوي أيود إلهي إنهم أيوه هم السفهاء كوى السفهاء وي أيها سفهاء جاهلين وي مركي ذاتك جاهل يكون شيء أيها سفهاء ولكن كالكذا لا يعلمون ما أكسونا على ضد ضنا وحاجة ضدك إنه نوح قرن وأركاي يسقون وحبا أنا قرن وإذا وقت جي لقوا أي لقوا معنا الإلهي الذين قوا آمنوهم أي قالوا حيلين آمنا وانهم أيني وإذا وقت جي لقوا أي لقوا معنا الإلهي الذين قوا آمنوهم أي قالوا حيلين الإلهي آمنا وانهم أيني ضدك مؤمنين تامك لقوا المان إيمان أي أشياء أيان إيمان أي أشياء أيان وهكذا هي رجعت عبد الله ابن سلول إياه كمل هاي وهي مركي رجعت عبد لقوا المان أي مركزي وناء أشياء جيران سو نزولك عيدا أبو بكر يا عمر يا علي أيها وحي أذين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله مركزا أبو بكر وحوضاي ورأديك يا أصحاب طالو كارية إخلاص تماية مركزو حوضاي مرحبا بالشيخ والصديق عمرنا وحوضاي مرحبا بالفاروق القوي في دينه سيد علينا مرحبا يا ابن عم النبي أيوة ورفيعا مركزا سيد علي وحوضاي والإلهي تعصوا دا منافق لما يتكداوله وركان بين كل شيء ميسيدي مركزو وعدها وركز أنا وأمدين إلا وحوي إنه إيمان كيجو إيمان كينو كاريه مويان مركز وركز إلهي سبحانه وتعالى وكبيرنا يا قالوا وحيلين آمنا وانهم أيني وإذا وقت يخلوا أي خالين نقضان وحوي ضدك مؤمنين تاعي كتجان هو مركز وحوي أي كتجان شياطين تظهروا أتدانه وحيلين سدانوا الإلهي وإذا وقت يخلوا أي خالين نقضان إلى شياطينهم شياطين تودي خالين نقضان قالوا وحيلين إن أنا معكم إينانا إذن كان إذن لجرنا ودين إذن كلامنا إنما إنك لا تماهن نحن أنه مستهزئون كوجه سياسة يعني ولا بس مركان إيمانك وشيغانين وأنا كوجه سياسين إلهي يقول الله ألا أيا يستهزئون بهم كوجه سياسة إلهي كيسو جاسم وهي إسيساء حقيقي سيئي وكان زانيه الله ألا يستهزئ بهم وكوجه سينا يسيسوه ذا ويمدهم ألا وأكرنا في ضغيانهم حد قلوب قول أيها وكسرا يعمهون حالهم كو ورسا أيها حد قد بايا أيها إلهي سبحانه وتعالى أسوغيا ويمده مول إلهي الله وأكرنا في ضغيانهم حد قلوب قول أيها وكسرا وأيها بعد الكاسكو نحجة أيها اللي كاذينيا عمرك الله ديرينيا أولادا الله بدينيا خصك أيها اللي زيادينيا وحوي عافمات أيها لفتينيا سلاس أيها سلاس مركاسا وحوي الله طبعا صبيا يعمهون حالهم كو ورسنوا إلهي ومترددين وميلنا عن قصونين أولئك كوا صود إلهي سبحانه وتعالى الذين كوا ويود إلهي اشتروا الضلالة بعيد الشرعي صود إلهي بالهدى هنونك بدل في صود إلهي ولقى المنافقين تعالى وحوليه أولئك كوا صود إلهي الذين كوا وي اشتروا الضلالة بعيد الشرعي صود إلهي بالهدى هنونك بدل فيسا بعد أن بقوا البدرية يا ليلة وعوية هنونك أي نقادين أي وحي كسو إيبسدين بعدين كسو إيبسدين وعلى قدر يا مركزي لو شبه الشرع حقيقي قوي معايا الهنون كذا يكتب يا مركزي بعيد قاتين مركز بعيد أي صوتين نهايتها إلى يقول فما ربحت ما يسان ربحن تجارة ذي ما يسان ربحن الإلهي فما ربحت ما يسان ربحن تجارة ذي إلا واحد مركز لا صوت شرايسته واحد مركز إلا هادية ربح باله هادية لمن كان مرة دي وعوية بعدين أي وحوي هنونك كسو إيبسدين أي بايدي وحوي أي سوقاتين هنونكنا إسكبحيان شبح ماشا كم يسيل نور إلهي مركا هذا إسناد الربح للتجارة وحاليري مجاس أو عقل يواي إلهي يقول سبحانه وتعالى فما ربحت ما يسان ربحن تجارة ذو ما يسان ربحن ما ربحوا فيها بل خسروا ويخسارين محايا لما صيرهم إلى النار المؤبدة عليهم نار أو ولغوط أي كجرا أي هانيا وفو حوية نار أو كجرا ولغيس وحوية قاسي oo markaasi jannadii ka tagay hadda xagee waxa way khataaro mid ugu xumeed ayuu khasaaray wama kaanu mana aysan ahaanin buu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muhtadiina ku hanuuna ma aysan ahaanin waxyaabaha markaas ay faleen wax ay ku hanuuneen ma ahan buu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo hidaayadina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka sarfiyay hadda waxa weeye hidaayada haday ku soo iibsadeen baadina waxa weeye khataaro ay kala kulmeen fama rabiha tijaaratuhum way tijaaradoodi ma aysan ribxin oo Ilaahay ma rabihu fiha kuma aysan ribxin bal khasiro way khasaareen maxay ribx markii la waayay maxalidkiisa khasaaro munaafiqiinta marka khasaaro ayaa ku dhacday naar wiligood ay ku jirayaan ayina ahaanayaan markaas uu Ilaahay wama kaanu mana aysan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin oo Ilaahay daacadiisa kuma aysan hanuunin hidaayadana waxa u diiday ficilkaas hoosha xun oo ay sameynayaan iyo waxyaabahaas beenta ay ku dhaqmayaan ayaa waxay u keentay
aysan hanuunin marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم منافقين تصفر وضوء إلهي كمثل الذي كي صفدي سوالته أيوده إلهي استوقد هريي نارا دب هريوده إلهي فلما قرتي الله أضي في سنارتي يوده إلهي ما حوله وحي هريريس هذا ذهب الله ألا أولتغي بنورهم نور كود أولتغي وتركهم ألا أوكتغي في ظلمات مقديالة لحوذ وقتغي لا يبصرون أيضا وحب أركين إلهي بحوره الدنا سبحانه وتعالى صم واكوا مقل أيوده إلهي بقم واكوا أفلأ عمي واكوا إن الله أيوده إلهي فهم أيقول لا يرجعون مصر نقنا ينبود إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغصوا ورمي 10 كين آيده قدام بيي وحي نكسوا جرني صفات كمنافقين تأي نكسوا جرني مرك إلهي سبحانه وتعالى وحو نسويري كوا سوا كوا شرايستي بايدة أو هنونك كبدل قاتي تجارة ما أيسان ربحين بورده إلهي سبحانه وتعالى من أيسانها ننكوهنون أيوده إلهي سبحانه وتعالى مركا ميشان إلهي سبحانه وتعالى وحو ييلا يا منافقين مثل أيا إلهي ييلا يا مثل أيا إلهي سبحانه وتعالى ييلا يا النفاق وضع مثله مركا إلهي مركو سوعد يا قبائح دودي إيا أمر فوضع عربتيس سيدا وأهانيو وحال كان وكقود جليا إنه أمثال وأصمايو وحانا إلهي أمثال شاس وكعد دينيا صفضوضا يوحي أي كسويهين أيا إلهي كعد دينيا إلهي وحور سبحانه وتعالى مثلهم مثل قوضوا إلهي صفتهم في نفاقهم وي صفضوضا أو منافق نمضا أو صفاء كمثل الذي كصفة الذي كي صفديس والله أيود إلهي استوقد هريي أيود إلهي نارا دب هريي وعو لمديهين بود إلهي منافقينتو نين ميل مقدي يجوغا وقت او وحاوية روب ودايو روب بوء ميل مقدي يجوغا او دب هرسدي دبكنا وحاوية مركاسي او افتيمي فلما قرتي أيود إلهي الله أدنارت أي هرسي ما حوله هريريس وحي أهي او وحو أركدي دبكنا ودكسدي او كلالي وحي او كعبسانين او كنبات قلي ذهب الله ألا أولتك أو إلهي بنوره نور كود أولتك oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nuurka uu ka damiyay hadda meeshan lamiirka waa la jamciyaa leeyri waxa la ilaalinayaa mawsuulka macnihiisa ayaa la ilaalinayaa dhahaba Allahu alla waa la tagay oo ilaahay binuurihi nuurkoodi oo markaasi mawsuulki alladii ahay ayaa waxa la soo qaatay macnihiisa la soo qaatay wa tarakum alla waa ka tagay oo ilaahay fi dhulumaatin mugdiyaala ayuu uga tagay la yubsiruuna ayagoon arkaynin waxa hareerahooda oo mutaxayiriin oo waleesan oo wadadii ka lunsan haddana khaa'ifiin ah oo wixii dadka u kordhiyay oo faa'iidaha ay ka heleen ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka qaaday marka waxaa la leeyahay munaafiqiintu waxay la mid yihiin kuwa noocaas ay la mid yihiin kuwa waxa weeye ayagoo mugdiga jooga dabka horsaday ee markii waxa weeye dabki meel walba uu ifiyay oo ay wax arkeen oo ay dugsadeen oo ay ku nabad galeen
markaas ilaahay dabka uu ka demiyey munaafiqiintu kuwaas ayay la mid yihiin oo ilaahay uu ku shabahayaa waxayna ula mid yihiin baa layidhi horta munaafiqiintu waxa weeye iimaan daahira ayay sheegteen oo waxay ku dhawaaqeen kelimatuliimaan taasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye dabki oo iftiimay oo kaleentood weeye marka dabki marka uu iftiimay oo wax walba ay ku arkeen iimaankaas ay daahirsanayaan ayaa lagu shabahayaa markaan dabka ilaahay uu kala tegaayo oo mugdiyaalo ay ku soo harayaan ayagoon wax arkayne waxaa lagu shabahayaa xaaladooda qiyaamo siday noqonayso oo markii ay dhintaanaa layidhi waxaa u imaanaya khawf iyo cadaab ayaa u imaanaya khawfka iyo cadaabka u imaanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa waxa weeye dabkaas nimankaa lagala tegey ee iftiinkii uu ka baaba'ay ee wixii markii hore ay heleen laga qaaday oo wixii xumaanahay iyo dhibka ay ka baqayeen dib ugu soo laabtay maxaa yeele munaafiqiinta adduunka markay iimaankooda kusaas ugu nabad galaan oy dhiiggooda iyo maalkooda ku ilaaliyaan maalinta qiyaamo ayay runtii arrintu imaanaysaa kolkaasay cadaabka ilaahay la kulmayaan haddana ilaahay wuxuu yidhi summun tanu waa khabar mubtadiisa uu maxduuf yahaye hum ayagoo ayuu dhah ilaahay summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay waxay ka maqal la'yihiin xaqa inay dhegaystaan simaaca qabuulin bugmun waa kuwa afla ayuu dhah ilaahay oo kharsi ayaa ku jira khayrka ayay ka af la'yihiin oo khayrka kuma qowlayaan waxay ka dhigan yihiin ruux akhras oo kaleentood cumyin waa kuwa indhalla ayuu dhah ilaahay oo dariiqa hanuunka ayay ka indha la'yihiin dariiqa hanuunkana ma arkaayaan fahum ayagu ayuu dhah ilaahay laa yarjicuuna ma laabanayaan oo baadida ay ku sugan yihin ka soo laaban mayaan haddana ilaahay wuxuu yidhi ow ka sayibin ow ambasa ayuu dhah haddana ilaahay masaluhum usoo qadaro masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dhah ilaahay hadda waxaa weeye tashbiihan kale isagana waanu sheegaynaa ow ambasa ayuu dhah ilaahay masaluhum masalkoodu ka sayibin ey ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too dad waxaa weeye roob uu ku da'aayo ayay la mid yihiin buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala ka asxaabi madarin waa la too ayuu dhah ilaahay madarkaasoo yanzilu ku soo qadaro ka soo degaya min asamaa'i samada ka soo degaaya oo saxaabka ka soo degaaya fiihi saxaabkaas dhexdiisana dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa ra'dun ayuu dhah ilaahay gugac amase onkod iyo wa barqun hilaacow dhah ilaahay lamcaanka markaasi ka soo baxaaya weeye yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay qolada asxaabu sayibkaahu asaabicahum farahooda ayay yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda ka cabsasheeda daraaddeeda u dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda sawaacida dhacaysoo onkodkaa ah ayay dhegaha farta gelinayaan saysan waxaa weeye u maqlin waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay xadaralmowti liajli xadaralmowti mowdka digtoonaashadiisa daraaddiisaw dhah ilaahay wallaahu allaw dhah ilaahay muxiidun kii koobo weeye alle cilmi iyo qudro ayaa ilaahay ku koobay bilkaafiriina kaafiriinta hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinti wuxuu ku shabahayaa dad waxaa weeye roob ou maaragtay aa ku da'aayo marka dadkaa roobka ku da'ayana roobka waxaa weeye waxay ka helayaan gugac ama maaragtay hilaac ayaa roobka ka dhacaaya gugac waa ka dhacaya hilaac waa ka dhacaya gugaca onkodna waa loo yaqaanaa barqiga waxaa weeye isagun hilaac weeye ama biriqda caadiga oo la arkaayo weeye dad sidaas ku sugan ayaa lagu shabahayaa haddana kufaarta weeye marka hadda waxa loogu shabahaya waxa weeye baa la yidhi oo mushabbaha iyo mushabbahu bihigu uu noqonayaa ilan tashbiih waxa uu keenayaa mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo wejhu shabah iyo adaatu tashbiih ayaa meesha ka imaanaysa marka hadda qoladan munaafiqiinta waxaa la yidhi qur'aanku markuu soo dego qur-aankana waxaa weeye lagu sheego kufri lagu sheegaa la yidhi oo markaasi lagu shabahayo dulumaadka qur-aanka waxaa lagu shabahayaa isaga madarkaa lagu shabahayaa kufriga lagu sheegaayana waxaa lagu shabaha qur-aanka dulumaadka lagu sheegaayana oo waxaa weeye madarka dulumaadka lagu sheegaayo waxaa weeye madarka mugdiyaa ku jira waxaa lagu shabahayaa kufriga ayaa lagu shabahayaa waciidka markaasi qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa isagana racdigaa lagu shabahayaa xujooyinka cadcad oo qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa hilaacaa lagu shabahayaa markii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhegahooda ayay owdayaan si aysan u maqlin onkodkaas aysan u maqlin macnaha waxaa laga wadaa qur-aankii bay dhegaha ka qabsanayaan oo simaaca qabun u dhegaysamayaan maxaa yeele waxay ka baqayaan iimaanka inay u iishaan
oo diinkooda baadilka ay ka tagaan kaasoo waxa weeye ayaga agtooda mawdka ah xadaral mawti marka leeyahane ayaga diinkoodoo ay ka tagaan ayaa agtooda dhimasho ka ah marka haddii aan tashbiihan wax yar aanu ku celinno waxa uu noqonayaa qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa madarkuu ku shabahayaa waxa weeye kufriga qur-aanka lagu sheegaayene ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa dulumaadka madarka ku jira waciidka qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa racdiga ayuu ku shabahayaa gugaca amba onkodka xujooyinka oo cadcad oo qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa hilaac ayuu ku shabahayaa mawdkana waxaa lagu shabahayaa dhegaha ay ka qabsanayaan qur-aanka waxay markaasi ka baqaayaan qur-aanka inay u iisho qalbigoodu oy diintooda baadilka ay ka tagaan markaasuu dha ilaahay ow ambase masaluhu masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dha ilaahay madarkaasoo min asamaa'i yanzilu min asamaa'i saxaabka ka soo degaaya fiihi saxaabkaasna dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa racdun gugac ayuu dhah ilaahay ama onkod malagga loo wakiisho weeye amba waa sawdkiisa laakiin bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suuratu racdi insha allahu tacaala iyo waa barqun hilaacow dhah ilaahay yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay asxaabu sayibkaasu asaabicahum farahooda macnaha anaamusha ayaa laga wadaa fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda onkodka waxaas ka dhacaaya xadaral mawti liajli xadaral mawti mawdka cabsashiisa daraaddiisa mawd ayay ka digtoon yihiin weeye wallaahu allow dha ilaahay muxiidun alhii koobay weeye bilkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa koobay oo cilmi iyo qudro ayuu ku koobay ilaahayna ka baxsama karaan haddana ilaahay wuxuu yidhi yakaadulbarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dafo absaarahum aragyaashooro hilaacaas wuxuu sigayaa inuu aragga ka dafo oo si surca uu ku qaado kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan iftiinkiisay ku soconayaan kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan buu dhah ilaahay wa idaa watigii adlama uu mugdiyaabo calayhim korkooda uu ka mugdiyaabo hilaacune qaamuu way istaagayaan buu dhah ilaahay aayaddan dambana waxa weeye waxaa tamsiil looga dhigayaa sida nimankaanu qur-aanka waxa ku jira ay ugaga baqayaan oo waxa weeye qalbigooda ilaahay xijaabka u saaray oo qalbiga looga daboolay haddana ay u rumaynayaan markii ay maqlaan waxyaabo ayagu ay jecel yihiin maxaa yeele qur-aanka waxaa soo gelaya waxyaabo adduunyo iyo waxyaabahaas ka sheekaynaya maxaa yeele qur-aanku wuxuu koobayaa adduunyo iyo aakhiro ayuu koobayaa oo adduunye dan aakhiraa ku jirta marka waxaa laga dhigayaa marka waxa weeye ay ka baqayaan inuu aragga uu ka dafo waa markii waxa weeye qur-aanka waciid iyo waxyaabo ayaga naftooda jeclayn lagu sheego weye marka ilaahay uu leeyahay kulamaa allahu mashow fiihine waxa weeye waa marka oo qur-aanka walax ayagu ay jecel yihiin oo dana adduunyaa lagu sheego wa idaa adlama calayhim qaamuune waa markii waxa weeye qur-aanka markaasi meel uu gaaro ayaga dantooda aysan ku sugnayn ilaahay wuxuu yidhi walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu la tegi lahay biabsaarihim araggooda ayuu la tegi lahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala samciga caadiga oo maaragtay xisiga ayuu alla ka qaadi lahay iyo wa absaarihim aragyaashoodaw dha ilaahay walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu kala tegi lahay alle bisamcihim maqalkoodaw dha ilaahay macnaha asmaacda weye iyo wa absaarihim aragyaashooda daahirkaa weye sida macnaha kamaa dahaba bilbaadini weye kamaa dahaba bilbaadinati weeye tii baadinkaa heeday basiiradii oo baadinka ahayd sida alla uga qaaday ayaa ilaahay midda xisigan uga qaadi karaa w dha ilaahay maxaa yeelow dhah ilaahay ina allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa ou doono qadiirun calayhi kara weeye ina allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye waxaana lamid a oo ka mid a waxyaabaha hadda la soo sheegay alla inuu ka qaado oo samciga iyo basarka xisiga alla inuu ka qaado ayuu alla awood u leeyahay yaa ayuhannaasu dad yahabow yaa ayuhannaasu dad yahabow ucbuduu caabuda ayuu dhah ilaahay rabbakum rabbigiina caabuda hadda aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mukallafiinta ayuu kula khidaabayaa waxaa la yidhi qur-aanka ilaahay kuma naadin baa la yidhi yaa nidahaasu min allaahi ha ka ahaada licibaadihi aw minhum lilaahi baa layidhi waxayna u sugnaataa lilnidaa'i albaciida layidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ahaaday inaan shay isaga shabahaynin oo xawaadisa allana uu ka nasahan yahay xawaadista
inuu markaasi uu shabaho daatada iyo sifaadka iyo afcaasha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku naadinayaa yaa wuxuuna sidaa ilaahay u yeelayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xisi oo maaragtay waxaan dhihi lahay bucdi oo macnawiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay uu naga fog yahay marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu dad yahabo ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa yidhi niduhu waxa weeye todoba u qaybsamaya nidaa oo markaas nida la yidhaha nidaau tanbiih maca madxin weeye sida yaa ayuha nabiyu marka ilaahay nabigiisa leeyahay amase waxa weeye nidaau tanbiih maca dami weeye sida yaa ayuha aladiina haaduu amase tanbiih oo maxliya sida yaa ayuha alinsaanu ama markaasi mid oo idaafa sida yaa cibaadiye ama mid nisbe ah sida yaa nisaa nabiy ama mid oo tasniye ah sida yaa daawuudu amase mid takhsiisa sida yaa ahlalkitaabi oo waxa weeye niduhu todobadaas ay u qaybsamahaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dad yahabow waxay markaasi kutubtu ku fasireen ahlu maka ayaa loola jeedaa inkastoo hadda suuraddaanu ay suurad madaniya ay tahay laakiin jamiicu almukallafiin oo dhan ayaa loo naadinaya ha layidhi maxaa yeele siyaaqa dambe ayaad ka fahmaysaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dad yahabow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda ilaahay rabbigiina waxida weeye alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala meel cadama ayuu idinka ehaysiiyey waaladiina wa khalaqa aladiina kuwiina abuurow dha ilaahay min qablikum idinka hortiin ahaaday allihii meel cadama idinka abuuray dadka idinka horreeyey ummatu maxamed ka horreeyena abuuray oo cadam idinka wada abuuray allahaas caabuda ayuu dha ilaahay lacallakum waxaa mudantihiin oo xaqiiqahu dha ilaahay tattaquuna inaad dhowrsanaysaan oo alla aad ka baqaysiin markii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa aad la timaadaan lacallada qur-aanka iyo axaadiisa waxaa weeye xaqiiqo weeye tii markaasi carabiyadoo lacalla litaraji wa tawaquci maahan weeye maxaa yeele haddii cabsi ilaahay lala yimaado oo cibaado alla lala yimaado waxaa imaanaysa in maaragtay cibaadadu ay noqoto mid xaqiiqa weeye haddii maaragtay alla la caabudo waxaa imaanaya markaasi taqwa dhalanaysa markaasuu dhah ilaahay alladii allahaasoo jacala lakumul arla jacaladan bimacnaa khalaqa weeye jacala lakumul arla arlada idiin abuurow dhah ilaahay firaashan xaal ay tahay tii gogol ah sideedana waa loo dayi karaa ha layidhi jacala lakum idinkaga yeelay al arla arlada firaashan gogol idinkaga yeelay waasamaa'a samadana binaa'an saanqaaf idinkaga yeelay maxaa yeela waxa weeye samadu arlada ayay saqfi u tahay wa anzala dejiyow dha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala min asamaa'i samada xaggeeda maa'an madarka soo dejiyey wa anzala dejiye min asamaa'i samada maa'an madarka soo dejiyey fa akhraja dabeedna soo bixiyey bihi bisaabil maa'i sababkiisa ilaahay samada uu ka keenay asamaraati mirayaala ku soo bixiyey fa akhraja dabeedna bixiye bihi bisaabil maa'i asamaraati mirayaala ku soo bixiyey risqan arsuqid daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo adinka ayaa laydin arsuqaahow dha ilaahay haddana waxa weeye dawaabtiinane waxa weeye arladaas ka soo baxay ayaad ku calfinaysiin falaa tajcaluu ha u yeelinow dha ilaahay lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la garab dhigo oo cibaadada loola waajiyo ha u yeelinow dha ilaahay falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina maxaa yeelay alla wuxuu soo dhahay ucbuduu rabbakum weeye rabbigiina caabuda marka allana waa allaha sifaadkaa ku sifoobay marka kayrkiis cibaadama mutaysa karo wal xaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoon tihiin alla inuu yahay midka khaaliqa waxaa weeye asnaamta aad caabudaysaan haddii lagu wado masalanba kufaartane ilaahay wuxuu leeyahay wax ma abuuri karaan wax ay samayn karaan ma jirto marka waxaan wax abuuri karin wax la caabudo maahane allaha isagu wax abuuraaya oo sifadaas sifatulkamaalka ku sifoobay isagaas caabuda ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shariigna ha u samayna wa in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay kufaaray ayuu dha ilaahay fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana ugaga sugan nazalnaa aanu dejinnay calaa cabdinaa addoonkayna nebi maxameda calayhi salatu salaam aan ku dejinnay oo qur-aankaasa ood ka shakisan tihiin qur-aanku ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday wa in kuntum haddaad ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana uga sugan nazalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayna fa'tuu la kaalayow dha ilaahay bisuuratin suurad la kaalaya oo min mislihi qur-aanka masalkiisa qur-aanka wax masalkiisa oo suurad lamida keena ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda mintan waxa weeye lilbayaan weeye wax masalkiisa xagga balaaqada
iyo nadmiga wanaagiisa iyo akhbaarta qeybka laga warramaayo wax lamida keena weeye. hadda suuraddaanu suurad oo qur-aan ahoo go-an maahan baa layidhi, maxaa yeele suurad waxaa la yidhahdaa qayb oo markaasi aayado ah suurad bay noqonayaan. waxaana ugu yar baa layidhi 3 aayadood xataa suurad waa la dhihi karaa. marka hadda meeshaan suuro oo luqawiya ayaa loola jeedaa. hadda waxa weeye xaraf qur-aanka ka midane inta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xuduudahu u sameeyey qur-aanka xaggiisa oo intaasba ka caajiseen waa inoo imaanayaan. wadcuu u yeerow dhah ilaahay shuhadaa'akum, shuhadadiina u yeera. shuhadada waxaa laga wadaa aalihadiina. wadcuu u yeerow dhah ilaahay mushrikiinow shuhadaa'akum, aalihadiina u yeera aad caabudaysaan oo min duunillaahi ilaahay sukadiisa, si waxa weeye ay idinkuu kaalmeeyaan oo waxa weeye qayb aayada ah amba suurad ah oo qur-aanka ay idinla keenaan oo idinkuu kaalmeeyaan. in kuntum haddaad ahaateen ow dha ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaya. haddaad run ku sheegaysaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankan inuu isagu naftiisa ka samaystay, arrintaas sameeyaa layidhi. maxaa yeele meesha waxaa ku jirta oo la leeyahay fa innakum carabiyuuna fusaxaa'a mislahu, adinkuba waxaa tihiin baa leeyahay dad carab ah oo fusaxo ah oo nabigoo kale maaragtay fusaxada saas ku ahaa tihiin. marka haddaan qur-aankaanu xag ilaahay uusan ka ahaanin carab fusaxaa idinkuba tihiina keen ayaa leeyahay. maxaa yeele hadda waxay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan mucjiska hoo la siiyey, mucjisooyinka markaasi waaweyn ayuu maaragtay ka mid yahay. mucjisada nabiga la siiyey waxaa u weyn qur-aanka ayaa ugu weyn. marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen rasuul walba markii la soo bixiyo waxaa la sii jiray shay mucjiso ah oo waktigaas waxa la xiiseeyo waxa markaasi waxa weeye ugu sarreeyo ah. maxaa yeele hadda masalama nebiyullaahi muusa markii la soo bixinaayey waxa weeye waktigaas sixirka ayaa waxa weeye wax lagu faano oo maqaam la ayaa ahay baa layidhi. sixirka ayaa wax maqaam la ahay. marka waxaa la siiyey say sixirka shabaha oo ka awood badiyey. nebiyullaahi ciisa waktigiisii cilmiga cilmudibiga oo markaasi dhakhtarnimada ayaa horumar gaartaa layidhi. marka cudurro ay ka caajiseen dadkii adibada ahay ayaa inuu bogsiyaa ilaahay uu siiyey. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waktigiisa fusaxada ayaa lagu faani jiray oo carabtu xagga fasaaxaday ku faani jireen. fasaaxada markay ku faani jireen ayaa qur-aankan oo ka sara maray fasaaxadoodii ayaa nebiga la siiyey. marka sidaas ayaa waxa weeye loo leeyahay wax lamida keena. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markay arrintaa ka caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina waxa la soo sheegay oo aad caajiseen. fa in lam tafcaluu haddaydaan falina lamtaani waxay anfinaysaa wixii markaasi maadii hoo tegey. maxaa yeele markaan hadda hadalkaana leeyahay ka hor ma aysan samayn. walan tafcaluu faliba maysaan ayuu dha ilaahay. oo mustaqbalkane inaad keentaan rijo lagama qabo. oo lamtuna waxay anfinaysaa wixii maadiya, lantuna waxay anfinaysaa wixii mustaqbala. marka marnaba inaysan arrintaas horu nagu suurtogelin hadda inaysan ka suurtogelin baa ilaahay sheegaya. saa hadday jirtow dha ilaahay oo horena u samayna haddaanada sameeyhayna fattaquu cabsadow dha ilaahay. oo waxa weeye inaad alla rumaysaan la imaada weeye. fattaquu dhowrsada ayuu dhah ilaahay annaara naarti ka dhowrsada. dhowrsiga naar looga dhowrsan karaa waa in alla la rumeeyo iyo rasuulkiisa calayhi salatu wasalaam. fattaquu ka dhowrsadow dha ilaahay annaara naarti allatii naartaasoo waquuduhaa kan lagu hurinaayo annaasu dadka u yahay. dadkuna waxa weeye waa kufaarta weeye. iyo walxijaaratu dhagxaantow dha ilaahay. dhagxaantuna waa asnaamtay caabudi jireen. naartaas ka dhowrsadowda taasaa idin hursane. naartaasoo ucidda loo diyaariyow dha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta loo diyaariyow dha ilaahay. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka soo warramay kufaartii iyo maaragtay sifaadkoodii iyo ma'aalkoodii, caadada qur-aanka ilaahay waxay ku direersatay inuu maaragtay dadka muuminiinta waxa ku tacalluqa iyo maaragtay amarkooda cidibtiisa uu ka warramo. marka ilaahay wuxuu yidhi wabashir u bishaareyow dha ilaahay u khabar aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suuban. acmaasha saalixada furuud iyo nawaafilba way isugu jirtaa. bianna lahum ow dha ilaahay inay u sugnaatay uga khabarow dha ilaahay jannaatin jannaat. wabashir u bishaarow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban anna lahum ow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala anna lahum inay u sugnaatay jannaatin jannaat. jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru webiyaal ay dureerayaan. webiyaasha afartaa oo ilahay qur-aan ku sheegtay doona weeye. kullamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay
minhaa jannadaas laga arsuqo kulamaa waxaa layidhi tufiidu tikaar weeye risiga mu'miniinta jannada lagu siinaayo inuu mar walba lagu celinayo laga qaadanaya kulamaa in dhammow risiquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo min samaratin simaarow dha ilaahay risqan arsuqid laga arsuqo qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay haadaa midkaanu alladii kii weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qablu hadda ka hor waa wixii hadda ka horna la siiyey jannada sideedaba waxa weeye waxa laga cunaayo tamatuc iyo faakiha ayaa loo cunaa ee waxa weeye gaajo iyo dhibaato looma cuno marka ilaahay wuxuu yidhi markii la arsuqo simaar lagu arsuqow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaanu alladii kii weeye misla maa kii masalkiisa weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qablu hadda ka hor waa hadda ka hor cunayna weeye maxaa yeelay jannada simaarteedu way isshabahaysaa halayidhi wa utuu waa loola yimid ow dha ilaahay bihi kaas risigaas waa loo keenay mutashaabihan xaal uu yahay kii isyabahow dhah ilaahay waxay sidaa u leeyihiin wa utuu bihi risigaas waa loo keenow dha ilaahay mutashaabihan xaal uu yahay kii isyabah yashbahu waxa weeye yashbahu bacduhu bacdan weeye barkiisaa barka kala shabah laakiin wuxuu isku shabahaa layidhi xagga maaragtay madabka weeye dacmiga laakiin waa isku khilaafsan yahay walahum waxaa u sugnaaday fiiha ayuu dhah ilaahay jannada dhexeeda aswaajun haween mudaharatun oo la dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weye xagga tamatucana ilahay wuxuu yidhi haween la dahiray oo xayl iyo wax kastoo la qarmoonsa laga dahiray ay leeyihiin haddana jannada way ku waarayaan weligeed kama baxayaan kamana gaboobayaan weye wallahu subxaanahu wa tacala aclam casharkeena intaas ku eegi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu